السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وود السلام يا دمانتين بقى. قوليه أنا أصحابتها هين الصومالي بقى هيد بانتيني سلام يا حلا هاي قلب وناكسين. أنا قلبت. ما أنتوا حربين كهالله. وح حق أي وح درها سيدا إنه نوع الصومالي ده ونقانه. الصومالي ده waxay tiraahdaa had iyo jeer boqolkiiba boqol muslim baanu nahay boqolkiiba boqol muslim baynu nahay marka okay waa maxay muslim sidiisba laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah marka ka timaado inta waxa ku xiga salaadii waynu tukanaa xajka waxa leeyahay hadii aad awoodo sakadana iska bixiya Soomaaliyeey waxa diinta muslimku inuu haystaa aynu ku haystanaa dhaqan iyo diin ba iska keen khaldameyna hadana Soomaalida nahay mihi aan qof cilmi leh oo maanta ayadiin soo daliisay waana qaan diinta inuu filan alxamdulillah waan ka dhigtay laakiin waxaan idin sheegayay anaha qofku aqoonta aan diinta u leeyahay aan ka bartay nafteed baratay iyo sida Soomaalida ay ugu dhaqanto iyo sida inuu dadka boqolkiiba boqol muslim u sheegano ayaan horta isqabanaynin marka diinteena la eego dadka cadaanka ba ku dhaqma diinteena waxa haysta waa ninkan cad hadii uu yahay laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah maalan kaliya kelmadda waxaan aaminsanay in jannada ka looga bixinay taa kaliya dooran lahayso waayo beenta ma yaqaan xaq darrada ma yaqaan dulmiga ma yaqaan كعد إيه أديو سين بأوتين محكمة حقول بكسينة يا مال بكسينة حقول كافر يسود دو كل بكسينة هوي بكسينة يا هل كاستيك أروح تلقو كرسو شيطان كاسكنار تد كاسد لميت هاي شرعي حقه ودم تقف كلية بعد لا هاي واقع شرعي أبو أرض بالقرنية النادي أيه واحد نصامينا isdulmina Soomaalida marka u fiirsato Soomaalida sideedaba maxaynu ku dhaqanaa diinta maxaynu ka haysanaa salaada waynu tukanaa ashhaadana waynu sameynaa sakadana waa laga yaabaa inuu iska bixino qaarna aanu bixinba qaar ay bixiyaan ko beenta waynu naqaanaa waxay naga badan ma jiraan dulmiga waynu naqaanaa waynu isdulminaa xaq darrada waynu naqaanaa kala xigsiga iyo kala xashada waynu naqaanaa ilaa iyo maxkamadaheena yaqaanaa marka ma oran karnaa waxaynu nahay dad diin haysta ma oran karnaa waynu nahay marka intaas waynu ku soo heetay dulmi in ninba ninka ka xoog weyn ninba ninka uu ka weyn yahay ee ka maal badan yahay uu ka awood badan yahay in banninka markuu meel xukun haysto uu inta ka hoos sacdaabayo xarig buu hanjabiyaa dil buu hanjabiyaa wuxuu hanjabiyaa waa badilaya dadana uu dhacayaaba Soomaali meel ka joogtaan uu ka hadlaya maaha meel qula beentu bariiska la miisto sida bariiska loo miisto ayaa u miisataan qof runta ku dhaqma anigu I don't believe it inuu Afrika joogo waa boqolkiiba 9 ama waa 2 baroon kara beentuna waa waxa ugu xun ee uu nabi maxamed alayhi salaatu wasallam diiday ee dadkaygu ummadaydu ma ahaba qofka been sheega ummadayda ma aha waayo wax ku kalifaya ma jiraan sinada haabo yiri tuugana badan ha laakiin been wax ku kalifaya ma jiraan waana run wax ku kalifaya ma jiraan waxa ku kalifaya been waxa ku kalifaya nothing way isdulmidaan dadka masaakiinta ah haday dhul laga qaadayo iyo hadii la dilo iyo hadii la kufsado iyo hadii wax kale lagu sameeyo qofka miskiinka ah waa dulmane ninka lacagta leh reerkoodu lacagta leeyahay waa lama taabtaan ninka dawladda loogu jiro waa lama taabtaan waay maxay ku dhacdaa maxkamadda ninkii fadhiyay xaakinka ahaa ee loo dirtay ayaan xaq gudbinayn xaq sheegay ma oran kartaan waa beenta ma oran kartaan waay maxay ku dhacdaa
sidee baa ku badbaadaysaan oo duni wanaagsan ku noqonaysaan ninkii xaqdarro carruurtiisa u keenaya berigii aabbayaashii annaga dadkii hore de intii aan dagaaladii dhicin xalaal cun bay ahaayeen waxay sheegi jireen runta waxaa mahmaha ahayd gaal dil gartiisana sii waxaa walaalka ahayd walaalka gartana ku fur magtana la bixi waa run xaq walaalka markuu xaq daran yahay walaalkay waa gar daran yahay dheh wixii lagu xukumana la bixi laakiin maanta walaalkaaba gar leh ma odhan kartid walaalkay waa khaldan yahay iska daa walaalkay baa khaldan qabiilkaaga nin ay hadduu khaldamo ma odhan kartid waa khaldan yahay qabiilkayga nin hebel waa khaldan yahay nagu khaldan yahay maaha no kulli shafkayna wada qaraaceen hebel sidee bay ku dhacdaa waa baydi hebelo waa kala bay rasaas baa la soo koranaya why sidee baa ku doonaysaa inaad ku noqotaan markaa quruun dhisan oo macna samaysa oo diin haysata saa ku noqonaysaan ma dhacayso dee ilaa run baynu sheegana ma dhacayso xaqdarro dulmi dumar haddii la dulmiyayo ha ugu darro dumarka waa wax lagu dul socdo iyagu idinkii baa isdulmiya ragga ahaa xalay waxaan daawanayay misaaka markaan kacay wixii igu horreeyay inay ku dhaca waxay gabadh ka hadlaysa booramay inankaygii baa la xaday bay tiri buur baa lala tigi waa la kufsada iyo aabe wanaagsan waa la soo hela inankiiba jeelkaa la dhiga bal nin la kufsaday oo koomay soo ku jira ciidanku soo helay oo xanuunsanaya ayaa dhakhtarkii la dhigay ninkii kale lala xidhayna waa hebel professor hebel lama taabtaan qolkaa u hagaajiyo furaashiyo sarirow dhiga waay miyaan dulmi ahayn inan baa la kufsanaya kow baa laga siinaya oo ninkii waa la xidhaya hadhow waa gabadh baa dhimatay haddii hablaha la kufsanayo 3 nin loo dili lahaa 3 nin haddii loo dili lahaa keliya oo wax kufsaday tiirka la taagay waa ku kufsaday oran lahaa dawladda iyo maxkamaddu ay asixin lahayn in la dilo oran lahaayeen heede waa hagaagi lahayd kufsiga dilka ah iyo kufsiga kale waa nin 60 jir ayaa inaan kufsanaya ama 40 jir reera leh ayaa inaan kufsanaya bal ilaahay baan idin ku dhaariyay wadaado iyo wadimo waa joogtaane diinta ninkan wax kufsaday ayaa lagu qiray inuu wax kufsaday halka ha ku jiro waatii ama hal isu cafiyo reer isu dhaaf waatii hada diin haysataan meel diintu markaa diintu waxaan reewaadku intuu ugu tago jeelka soo saara ninka dhagax lagu dilo inaan ka yeelna 80 jeeda laga jaro waa marka kuwaas waa dadka nabadda ma aha dadkan la dilayaan kale ka hadlayaan ma aha dadka la khasbay waa dadka nabadda isugu tagay ee la isku qabtay way marka afar qof ku marxaati furto ee nabadda la isugu tagay waa dadka nin wax xoogay oo quwad nafteedii jaray oo kow ka siiyay ayaa jeelka idin ku xiran markaas waliba qabiil hadda dadna ku difaacaysan oonaysan waa qabiilka iyaga lama taaban karo waa naag simple state markaas waxaad doonaysaan inaad dad noqotaan oo dhaqantaan oo dawlad noqotaan oo cajiib noqotaan been bay isugu sheekaynaysan hadday isku sanaysaan been bay isu sheegaysaan daacadnimo ma jirto adduunka la wanagu necba qofka been ii sheega iyo qofka been iga sheega xitaa qofka been hadduu iga sheego weliga ma afiyo waxaas ugu wax aan samayn jirkaygu xitaa ugu gariira ana been ma sheego waayo waxaan u sheegayaan ba jirinba haddii aan laba dumar oo kale ku kala yar maslaxayo na wal ma maqleen anigu aan dhahdo ama se aan kala maslaxaad yar oo dhici karta waliba aan been qayaxan sheegini yaana dee aan si kale oo yar oo khiyaamo ah aanu kala celin karo laakiin waxa la yaaba dadkiinan gebigooduba ka samaysan beenta maalin ma waxaan aan wadanka tagin 22 sanadood ayaan 90 waxaan tagay 2012kii burcaan tagi tawalli ma la yiraahdo waxa jirta meel yaroo inay hadda jirteen kala garan maaye computer waa maalintii ugu horeysan arkay qof been cad sheegaya waligay ma arag qof been cad oo xayaqan oo dad dhexdii ka sheegaya ma arag qof been ii sheega oo wax kale ha laakiin qof dad dhexdii bulshada dhexdeed been ka sheegaya ma arag oo dadkii ku qoslayaan oo dad bakalaan
ama ana eegay badan ba kala haydee way uu caado wax iska dhaqana way mar hadii dhaqan noqoto wuxuna dadku wax shoodaba community kana ku jira saacad baan kireystay anoo ku jira email iyo wax iska soo dirdiranayo Facebook iska jiro dadka iska wareysan ka joogo oo waayo anigoo wadanku iyadoo anigu de yar dhisan yahay waqooyi dagaal ka socdo ayaa wadankaygu dambeysay deedna anigu halkan markii horena duco ilaahay oo diyaaradaha la qaarigo yahay diyaarada ari baa la socdo diyaaradu waa ninka diyaar qurux badan raacay marka diyaarada xita liga bajiyaan baqayoba ayaan tigi inaan halkan dhinacigu fadhiyaa community wuxuu ku jira inaan baa soo wacay wuxuu xagaad joogtaa mala way balansanayeen markaasuu ku yiri waxaan joogaa dahabshiilagtiisa waa ku imanaya haye dahabshiilkiiba iyo halka aan joogay suuqa qaban wali baan joogaa dahabshiil waa suuqa bartankiisa wala yaab iska aamus mala waa dahabshiil kale meeshan ku jiro huydo ma idin dhow baa tir dahabshiilku iska aamus wuu ku soo celiyay waaniga ka soo laabanaya buu yiri halka dukaanka hebel halka caynkaas waana soo laabanaya xawsa waa dhinacigu fadhiyaa waan yaaba isug 1 minute baa ku soo gaaraya haye mar saddexaadkii markuu soo celiyay ayuu ka bisqay waqtiyo ka ana waqtiga dhamaaday waxaan ku leeyahay maxaad beenta u sheegaysaa wadanka ma joogtidi ويسك عادي wax been ma jiro hadda tagay ayo iska caadi buu waan yaabayo de wax been saasan mishi waxaan ku marka beesha fadhidid waxa ku fiicnaa taa halkaas aan fadhiya waqtiga kadib baan ku imanaya adigu ninkii marka waxa weeye waxaan soo ogaaday hadda waa sanad kasta waan tagi jiray waxaan baa ogaaday gabadhood inay been ka samaysan yihiin dadkuba oo aanay wax run yaqaanaaba joogin ayaan ogaaday marka ilmaada rayaalo beenta iska yaray dadka qurbuhu wax ku fiican beenta ma yaqaaneen xitaa dhalinyarada beenta ma taqaano hadii qof soo cunto xukun soo adeeg ku marxad furayaan kuwa aan dhaleba hadda dan ku way halka wax ku taa waxa soo beeya waxa uu sheegay beenta maxaad u sheegaysaa waa khalad beenta inaad sheegto waa khalad bay ku oranaya nayaahe na waxa fiisi bal waxa ku tiraahdaa bariya saadamiyo qormad bixinaysa lacagta bal wada dil doono ee waqtiga hadhow lacagta bixisay ma bixinay maxaad bixin waay wadi yiri way barab screenis na barab iska garanayna naga tagay masalonista marka waxa weeye waana been inaan sameeyno ma qofka wixii sax u sheeg wixii sax u sheeg marka way dadkeenan caruuraha beenta ka daayay oo xaaraanta siinaysan ka daayay oo xaqdarrada siinaysan ka daayay oo waxaan aad wadaan joojiyo oo ilaahay ka cabsada subhanaka ya cadiim wallahi anigu idin xasa u noloshii ma walaha u dhisantii alla ilaahay idin jecela ilaahay idin jecela إلا ولي نبدي بيدسيو سكبا شارع بيديو إذا كاسب برضو بشارع بنت سكداية بنت واحد قبيل كان سكداية ويا قبيل كنت أود وينان وحضر كسداد ونحيق صاني هذا أركان بس يا عدد كان حد بيا أخ لا إله إلا الله دتك هو تبعان نين عن بريكور رين وكودي سين وحوق سينين بعد ما أنت ورهانس ورسالة والغنية ورنقت الباب كلا قاصحني كاسحنا بس اسكو عيل كان بين maxaa ku geystay xitaa bal cajaladihi Soomaaliya dib u dhageystay ninkaas ilaahu naxariistay waxa uu idin sheegay oo war riyaati dhab ah saasan inta saddex maanta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah see you next time. Hey guys, don't forget to like, subscribe and turn post notifications on, and I'll see you guys next time. Bye.